أحمد مدوب يا سعيدني شيخ شريف يا خير نين كستقددي سهري أيو أسوقاتي يقوله ين ليس آمنين إن ليس آمنين أيا كرون إن ليس آمنوا مدحوينا حسن شيخ محمود يا معارض أو قددو ظهري أسوقاتي قريوه دي كسوقاتي أيا إمك كوة قدينية هوتيل كان لغو مقعابة ديكالي وكيا لقدها أيربوركا آذن عدي hadda badaa wadayaal muuqaalkan waxaan idinku soo gudbinayaa arintii TikTok dhalinyarada habeenkii cashada inta soo qaatay nin kasta cashadiisa soo qaaday ee la isku dardaro wax la mid ah oo dadkii Soomaaliyeed ay la yaabeen ayay mucaaradkii iyo siyaasiyiintii Soomaaliyeed ka dhax bilaabeen siyaasadda dhexdeeda oo waxay leeyihiinba yaan la is aaminin talow haddaan la is aaminin maxay xataa ugu yaraan qadada kadib marka nin kasta uu soo qadeeyo xaafadiisa ka soo qadeeyo ay uga dhigan waayeen xogta kulanka qadada ah ee imika ka socda hotelka Dikaale ayaan daawadayaal muuqaalkan idinku soo gudbinayaa akhyaaray soo dhawaada meel kasta oo aad caalamka ka joogtaan waxaan idinka codsanayaa muuqaalkan dhamaantiin inaad meel dheer inoo gaarsidaan halkaan aad ku soo biirtaan wadadii 700 kun aan ku soconaa saaxiibayaal soo dhawaada sidee u aragtaa Saciidan inuu qadadiisa soo qaato أحمد مدوب وقديس سوقاته حسن شيخ محمود وقديس سوقاته شيخ شريف وقديس سوقاته سيد الشيكة دي تيك توك لما يرد التيك توك ليدا هاي هبينكي انت عشان الله وذا كان صدقف كي عاو عشان الآن يماذا أما عشديس عشان كدوناته تيرك اللي بحرج جرب على ميل اللي بحرها كواحد على مركع عشان الشيكة دي مثل ما إن تيك توك بالله يعني أي سياسة دي كده بالله بين سياسيين الصوماليين يدو وجدوا وين أتى يلي سامين حدام باللي سامين مرك سوكمو هناك سنين نكست إنه hotelka uu degan yahay intuu ku soo qadeeyay kadib la isku yimaado bal fikirkaaga iyo aragtidaada faalada noogu reeb ragga noocaas ah ayay dadka Soomaaliyeed maanta meel u fadhaan markaasi waxay leeyihiin bal siyaasadda Soomaaliyeed maxaa la sheegay intay wax marayaan maxaa hagaaga waa dad qadadii ku kala shakisan oo madaxweynihii uu yiri soo imaanayna ma habow ee dhahan kuma imaanayno madaxtooyada halisa ka jirta ma imaan karno aan xalana isugu imaano ee madaxweynuhu uu yiri waayay ana idin casuumay waa wada qadeynayna hotelka Dikaale aan isugu imaano دكاليه لفتر كيس وحي تاجين هاي وكوجو مانا لكن قدرنا أنا قصو قادنين وواحد ضد بدن الصومالية ترنتي أي آد وهذا الحيان موقال كان خيار يميل ده هلا جرسيو هوتيل كدكالة واحد سوق جاري لما مدحدي كشر سنايد أو قدام بمدحوين حسن شيخ محمود أو سجون الدقيقة كهر جاري هالكاس هذا واحد سعود قددي نكست وجرجي سكسو قاطي أيام إيش اللي جوا الرام سنة يا مركب كوع كستقددي لنا sida wararku sheegayaan wariyaashii wax soo duubay muuqaalada kooxay la qadayaan ilaahi meel ay taagan yihiin waxay isleeyeen mucaaradka miyaa la qadaysaan ma qaybta qadada Sheekh Shariif miyaa aadan waa sida xogta saaxiibadeeda wariyaash ah ee ku sugan Dikaale sida ay xogtu sheegayso yaani wariyaashii meesha joogay kooxay la qadayaan meesha ku foos wareeray ilaa nin kasta qadadiisu wataa qaar wariyaashii waa soo baxayaan gaariga Sheekh Shariif qadada lagu soo qaaday oo meel taala la duubaa dhag يعني ما نحما ورياشو إنه يعني مال إسك استعجان جوان صح يقاطع رنتي صبتوا إن من أيجي قدر إسكو فهم لا أو إسكو ورا رسالة إنك استقدر دي سمال تال رنتي تدك الصوماليات أيار ربع بالهرت إيه فكر كود يعني تدور فعلنا نقول ربان لمن قددي لو ضعوني لاي يعني له إنك استنيو أما قدر الوصو درع أما نيو سياسة ده إسكو هاي دورش أسولو أما لو ربان نيو أما لو تاكيا نكست أسليه كدب قديد سوقات لكن داود يال سوكمو ونكسنين حدام باللي يفهمين اللي يسأمنين إن السمرك على وصل سوب بحسده ولا سوى ذا قديد إن السكوي ماذا رنت أنسى الشركة دي اللي يرد تيك توك عيال كيرير قديد أنت حافظ كسوق هذا كي عدي ساعة وعم بولا كرستي كي عدي ساعة وبريس كرستي كي باست دير باست مكروني وعد كستوحي كرستي أنت لا سوق هذا هلا صح اللي يسكو قدر سنة لو دعوناي maxay dhaantaa daawadayaal bal sheekadii TikTok ma muuqataa siyaasiyiintii Soomaaliyeed oo mucaaradkii Axmed Mudoob iyo Saciidan ugu weyn iyo madaxweyne Xasan Sheekh inay iyagana dhexdooda ka bilaabeen talo madaxweynuhu isaguna qadadiisa ma soo qaatay kulay sida ay xogtu sheegayso madaxweynaha ayaa casuumadan fidiyo yiri halkaas aan iskugu imaano marka runtii xataa ugu yaraan waxay ahayd inaanan la duubin oo la qariyo baash ilaa dadkii Soomaaliyeed siyaasad idinka sugayay islaha xalana maxaa ka socda Axmed Mudoob iyo Saciidan iyo Xasan Sheekh Maxamuud maxaa war ah oo laga heli doonaa islaha haddii arkaan ka waran nin kastoo qadadiisa soo qaatay bal fikirkiina iyo aragtidiina daawadayaal dhinaca faalada noogu reeba tan ma oogi waxa dhihi doontaan laakiin in kasta inta yiraahday leesma aamini kara qadadiisa uu soo qaato waxay ka dhigan tahay bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam maanta ay tahay maalin talaada ah waxaan ka soo qayb galnay anagoo golaha mustaqbalka qaado sharaf uu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
mudane xasan sheekh maxamuud maanta wuxuu ahayd uun shirka furitaankiisii khudbado gaagaaban baa meesha laga akhriyey oo soo dhoweyn iyo mahadcelin iyo in laisku laafurnaado maanta wixii ka dambeeya ayay wada hadallada si toos u bilaaban doonaan waxaa jiri doonaa shireer gaargaara markaas kadib baa wixii warbixin rasmi la heli doonaa laakiin maanta qadadaas bay ahayd waxay gaalada ugu yeeraan ice breaking dad kala maqnaa inay sarkaan isa salaamaan xabadka isku qaadaan iqadii dib loo soo dhiso arrintaasna waa meel fiican bay maraysaa shirarka maanta waxay ka bilaabdane si toos ayay u bilaaban doonaan intaasaan rabaa inaan ku wargeliyo waaba bilaabdeen wax balan lahay ma jiro ilaa caawa ilaa berri walaalaha xamar iyo meelaha kale isaga yimidana waxaan leenahay weli haddaad isu timaadeen tashada israaca si aad la fahmi karo isu raaca ra'yina la imaada waa idinkala doodaynaa ra'yi lama imaan kartiin ma lihin isuma tegi kartiin ma lihin lama aadi karo diyaaradaha laga xiro garoonka lagama degi karo lagama dhoofi karo ma lihin dhib kale iyo cillad kale iyo ceeb kale ma qabno wax la fahmi karo ummadda soomaaliyeed u sheegi karno sidii nimankii idinka mid ahaa shalay ee la yimideen wax la fahmi kara ee na fahamsiiyey aan ka aqbalnay war wax la imaada oo na fahamsiiya waa idinkala doodaynaa annaga waxa aan qabno ra'yiga aan qabnaa war reer magaal warqadu ku yaal waa qoran yahay xeerka doorashadu ku yaal xeerka xisbiyadu ku yaal dastuurka intii la ansixiyo ku yaal waa qoran yihiin ra'yiga aan qabno ee dowladnimada waxaan ka qabna meeshaasaan ku sheegnay dowladaan nahay haddaad wax ka diidan tahay inkastoo qaar idinka mida shalay ay aqbaleen oy doodii baarlamaan ka qayb galeen qaarkiin xildhibaanna yihiin qaarkiin ra'yiga ay baarlamaan ka jeediyeen lagu daray kuwo kale kasii horreeye lagu daray annaga ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto waxaan rabaa inaan u sheego aniga iyo intaan odag u ahay wixii ummadda aan ka ballan qaadnaan ku taagannahay shalay wixii waa samaynaynaa aan dhahno yaan rabnaa inaan samayno wax ka zaa'ida ma wadano wax ka naaqisana ma rabno wixii aan waxaan ummadda ka ballan qaadnay maba ka wada gaari karno laakiin niyad samaan wixii aan ga gaari karnay inaan samaynaan rabnaa waxa kalena muxuu ahay berri ayaa la samayn doonaa ciddii maantaas mas-uuliyadda noo qabato noo joogta ayaa samayn doonto siyaasadda loo dhan yahay marka waa midaasaa in loo dhammaado oon wada jirno isla wada fahamno dhexdeeda aan ku tartanno xayndaabka dowladnimada bannaankiisa siyaasad nagama jirto siyaasadoo dhan waxay naga jirtaa xayndaabka dowladnimada dhexdiisay naga jirtaa aan soo gallo xayndaabka dowladnimada dhexdiisa aan ka hadalno mas-uuliyiinta ummadda mas-uuliyadda u haayana inay mas-uuliyaddii dowladnimada ahaayeen inta ka baxaan ay xayndaabka bannaankiisa ka raadiyaan darajo kalo mas-uuliyaddu meel mustawa hoose mid dhexe mid sare meeshay doontaa waa arrin fiican oo bogaadin leh in maanta uu qado u sameeyo mucaaradka intiisa badan maxay ahaeto waana arrin bogaadin mudan waayahay raggaas waxay sheegeen inaysan villa soomaaliya tegaynin see u aragtayda weli qof dhahay ma jiro villa soomaaliya ma tegaay mucaarad ama qof musharax madaxweyne ama maamul goboleed qof ka socda oo dhahay villa soomaaliya ma tegaay weli ma hayna annaga saxaafaddana waraysi noocaas maysan siin saasaan waa cilmi qayb waay marka kuma fiicno سعيد عبد الله الدين مدينة بنتلاند waxa uu sheegay muqdisho inaysan ka tagaynin ilaa ay ka jihiyaan xaaladda dalka bal waxa arrinkaas lagu ku tilmaamay waa maasan tahay muqdisho waa dalka Soomaaliya qayb kamid ah waaye dalina waa madaxweynihii Puntland waaye de Soomaaliya meel walba uu ka joogane de xaq uu leeyahay inuu ka joogo maahan macnaheeda maahan muqdisho ka dhigin meel oo ka baxsan Soomaaliya ka baxsan ka dhigin حق وليه وجوي كرا مقدشو جهينته وتلمان maxay tahay soo siyaasadda u jihaysan de waxa laga yaabaa aragtidiisa inuu ka hadlay marka aragtidiisa anaga ma rabno inaan ku cabirno de qofka muwaadinka ahna aragtidiisa waa dhiban karaa waa madaxweyne maamul goboleed waaye wuxuu arko ka hadlay waa maasantahay soo dhawow waayahay dhinaca kale xildhibaano oo ka tirsan baarlamaanka oo la ganaaxay waxay ku dhawaaqeen xubno kale oo garab kale inay yihiin oo baarlamaanka xorta ay la bixeen maya waa غير الشرعي واتاس برلمان لما قرب ديس كرو برلمان كان وبرلمان دستوريا قفك معارض كا حلبان كا أركتوا يلان كرا
dastuurkii dalka maanta maxay doodiisa ay socotaa isbuucyadan waxay ku fiicneed inay yimaadaan dhinacooda ka doodaan xaq u leeyihiin inay aragtidooda dhiibtaan waxa la aruurinayo saxaafadda markhaatiga ka tihiin waa aragteen waxa la aruurinayo waa maxay